kulanti wacan wanaagsan khiyaartan dhageysanaysa meel kasto nagala socotaanba halkana waa radio xurriyo codka shacbiga ogaadeynaya oo aad ka dhageysanaysaan mawjada gaaban ee 19 mitirban iyo sidoo kale baraha aan dhanka internetka ku leenahay waliba YouTube-ka radio xurriyo qodobadaan idaacadda galabnimo idinku haynana waxa kamid ah waraysi aan la yeelanay hoggaanka arrimaha gudaha iyo amniga ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadanaya mudane cabdi cabdullaahi waxaa kaloo maqli doontaan warar aan idinka soo ururinay waxyaabaha wargeysyadu ay ka qoreen Ethiopia ogaadanaya iyo waliba geeska Afrika sidoo kale waxaad maqli doontaan qodobo kale marka horese aan ku bilaabano idaacadeena ayadihii quraanka kariimka aha wa in kanat amra alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis samaa'i fata'tiyahum bi ayah ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين الله inuga fiicintaasi waxa inoogu yidhi aayadihii quraanka kariimka ah waa maalnimo jumca bisha Julayna waa 23 sanada 2010 waxa kale idaacadda galabnimo ku maqli doontaan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray ku maqli doontaan dagaalo ogaadanaya ka dhacay waliba xarig fara badan oo ciidamada wayaan halkaas ka geysteen iyo kaalintii suugaanta aan ku bilaabanay waa kan warkii idaacadda iyo wariye Maxamuud Sheekh Cali iyadoo ay weli dagaalada ciidanka xoreynta ogaadeynaya ku qaadayaan kuwa wayaana halkoodii ka sii soconayaan ayaa wararka dagaalada ee ugu dambeeyay waxa ay xaqiijinayaan in go'aamo badan oo la isaga hor yimid si xun loogu jabiyay askarta wayaanaha ee ogaadeynaya ku sugan dagaaladan oo ah kuwa maalinle ah ayaa waxaa sidoo kale ay ciidanka xoreynta ogaadeynaya gacan kulul ku dhufteen intii yareed ee ka soo hadhay kooxdii hawaarin ee askarta wayaanuhu samaysteen kadib markay iska dhicin waayeen naftad horeyaasha ciidanka xoreynta ogaadeynaya wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in waddada isku xidha garbo iyo birqo dagaal qorshaysan oo ciidanka xoreynta ogaadeynaya ku qaadeen kuwa wayaanaha iyo koox hawaarin ah oo isweheshanayay halkaas hilfaha loogu qaaday iyadoo dhimashada ay 10 kor u dhaafayso halka dhaawacuna inta ka badan yahay sida uu noogu soo warramay wariyahayaga nooga soo warrama magaalada Jigjiga ayaa waxa uu noo soo sheegay in habeenkii labaad xabsiga weyn ee loo yaqaan jeel ogaadeen oo ka mid ah halka dadka ogaadeenaya lagu ciqaabo uu ku geeriyooday marxuun lagu magacaabi jiray Xuseen Yuusuf Cali oo meydkiisii xabsiga laga soo tuuray marxuunkan oo muddo 3 sano iyo dheeraad halkaas ku ciqaabnaa ayaa waxaa markii hore si gardarro ah looga soo qabtay tuulada la yiraahdo Boodley oo ka tirsan Gunagado geerida marxuun Xuseen ayaa waxaa sababay ciqaabta joogtada ah ee isaga iyo inta la midka jeelasha ogaadeynaya loogu geysto isla sanadkan ayay ahayd markii dad 20 ah ay si wadar ah u geeriyoodeen xabsiga jeel ogaadeen kadib markii cadawgu sii kordhiyay ciqaabta iyo nolol xumada halkaasi taala halkaad warkaasi kala socotaana waa radio xurriyo codka shacbiga ogaadeynaya sida aad idaacadeeni baxday jimcadeena dhaaftay aan ku soo gudbinay qaar ka mid ah magacyada boqolaal qof oo lagu xidhxidhay gobolka Qoraxay gaar ahaan magaalada Qabridaare ayaa waxa radio xurriyo u suurta gashay inuu helo magacyada 80 qof oo ka mid ah maxaabiistaas waxayna kala ahaayeen Khaliif Umar Sulub Yuusuf Badal Cali Sayid Xaaji Bisinle Axmed Yuusuf Cabdi Mahad Kaydsane Cambara Axmed Cabdi Nafiis Cali Sahal Xaliima Maxamed Qani Samsam Qorane Xamdi Axmed Umar Bashiir Sheekh Axmed Khadar Cobale Cabdi Maxamed Dayib Wacdi Maxamed Maxamed Xiis Cabdi Maxamed Cali Faarax Fidin Axmed Cabdullaahi Guray Faaduma Ciise Ayaanla Axmed Cilmi Axmed Sheekh Carab Cabdi Kariin Maxamed Kilaas Shukri Cilmi Suul
cabdulle liibaan cumar qalaade xaliimo sheekh maxamed arda maxamed axmed ayaan maxamed axmed dadkaasi oo sida la xaqiijinayo silicdil iyo tacadiye aadamaha ka baxsan lagu sameeyey ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah fadxa yuusuf baynax arda khadar maxamed nasiib sheekh ibraahin rooda iidoor xaaji cabdulaahi dayib saylixa cabdulaahi maxamed dubbad daahir maxamed baaruud maxamed carab khuuriye axmed khaliif shukri khaliif cibaade xasan faadumo xirsi bile iyo cabdirasaaq sheekh sigad dhanka kale iyadoo weli halkeedii ka sii soconaysa xayiraadda uu wayaanuhu ku hayo Ogaadeenaya ayaa wararkii ugu dambeeyey ee wariyaha raadiyo xorriye Ogaadeenaya nooga soo warrama noo soo tabiyey in hadda ay wayaanuhu soo saareen qorshe nolosha dadka ka dhan ah kaasi oo aanay ganacsatada magaalooyinku isu gudbi karin oo ganacsadaha degmo ka shaqaysta aanu degmada kale u gudbi karin iyo sidoo kale in ay wayaanuhu samaysteen shakhsiyaad gaar ah oo ay ugu yeedheen iskaashato ganacsi oo keligood dalka wax soo gelin kara waxna safrisan kara iyadoo magaalo kasta dhowr qof oo caynkaasa laga diyaariyay halka inta dadka soo hadhayna lagu qasbayo inay kuwaasi uu cadowgu samaystay ay wax ka sii qaataan arrintan ayaa waxa wayaanuhu uga dan leeyahay inuu dadka gaajaysiiyo iyo inuu ku qasbo inay isaga lagu qabsadaan oo ay adeecaan tallaabadan arxamdarrada ah ayaa waxa ay daba socotaa ololihii horeyba Ogaadeenaya uga sii jiray ee cunaqabataynta ahaa sawir cusub oo la xidhiidha xuduudda Ogaadeenaya ee dalalka ay dariska yihiin sida Soomaaliya, Kenya, Djibouti iyo Itoobiya ayaa waxaa soo saaray maapka Google Earth oo sida uu sheegay khariirada ku cadeeyay isbedel ku saabsan midabka laynka kala qaybiya xadka dalalka dariska la ah Ogaadeenaya kaasi oo sida ku cad markii hore ahaa jaalle ama huruud haddana ay ku bedeleen midab casaan ah taasi oo macnaheedu yahay inay tilmaamayso khilaafka iyo dagaalka Ogaadeenaya ka socda isbedelkan cusub ee Google Earth ku sameeyay xariiqda lagu asteeyo xadka Ogaadeenaya iyo wadamada la-oolaga ah ayaa waxay ka mid tahay wadamo badan oo sidan oo kale ay ku sameeyeen iyagoo eegaya dhanka siyaasadda iyo khilaafka dagaalada ee meeshaasi ka jira waxayna isbedelkan haatan uu Google Earth oo ka mid ah warsidayaasha caalamka ugu caansan ku sameeyay maapka Ogaadeenaya ay daba socotaa aqoonsiga Ogaadeenaya ee ah in wadankaasi yahay mid ay dagaal ka socdaan oo aynan gacanta ku hayn xukuumadda wayaanaha madaxweynaha dalka Kenya Mwai Kibaki ayaa shaaca ka qaaday maruu booqasho ku tagay magaalada Garissa in gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya lagu kordhin doono 3 degmo oo cusub kuwaasi oo lagu kala magacaabo Balambala Habasweyn iyo Tarbaaj degmooyinkan cusub ayaa waxay horey uga tirsanaayeen Garissa iyo Wajeer sidoo kale madaxweynaha ayaa sheegay in wadada isku xirta Garissa iyo Nairobi dib loo dhisi doono isagoo hadalka ku daray in jaamacad cusubna laga furi doono sanadkan dhexdiisa magaalada Garissa intaasna waxaan ugu idil warkii aan galabta idinku tala galay waddaniyadqaay mar hadduu dagaal galo dib u laabo ma ogola anigu waan dirirayaa dalkeennan xoreynaya anigu waan dirirayaa dalkaagaan xoreynaya weliba waan dufaacayaa digaygan u daadini